1912 markabkii Titanic markuu badda ku qarqoomay dadkii saarnaa maxaa ku dhacay muuqaalkii laga duubay 1986 muxuu ahaa dadkuse maxaa qulubtooda bedelay Titanic qarqoomkiisii sababta ka dambeysay maxay ahayd waxaa la aaminsan yahay in ay tahay sababta ka dambeysay sabab la xiriira iimaanka dartiisa markabka meel ka mid ah ayaa waxaa lagu qoray ilaahayna ma qalibi karo macnaha ma qarqin karo dadka markii ay u soo daabasho tageen markii la soo bandhigay markabka Titanic ninkii sameynayay ayaa wuxuu dhahay allana ma qarqoomin karo alla subxaanahu wa ta'ala isagana waxa uu tusay awoodiisa halka ay gaarsiisan tahay in ka badan 70 sano ayaa la tagi waayay halka uu ku degay markabka intaana muuqaalka ku gudagalin iska hubi haddii aad ka mid tahay dadka ku xiran kanaalka markii ugu horeysay muuqaal saacad iyo 20 daqiiqo soconayo ayaa lagu soo muujiyay qaabkii uu u ekaa markabkii caanka ahaa ee Titanic kaasoo jiifay sagxadda badweynta Atlantic kadib markii uu degay Abriil 1912 sida laga soo xigtay website-ka rasmiga ah ee socdaalka Woods Hole Oceanographic Institution muuqaal la duubay Julaayo 1986 waxaana markii ugu horeysay la soo bandhigay Arbacadii iyadoo la soo saaray muuqaal naadir ah oo aan horay loo arag waana markii ugu horeysay markabka markuu quusay kadib wakaaladda wararka Associated Press ayaa ku warantay in muuqaalka la sii daayo markabka Titanic waxa uu ka soo baxay magaalada Southampton ee dalka Ingiriiska wuxuu ku sii jeeday New York markabkani waxa ka badbaaday oo kaliya 706 qof waxaana ku naf waayay in ka badan 1500 oo qof muuqaalka laga soo duubay markabka markii la soo bandhigay